وأي عيدة سعيتي فنان كعان كاعي عمر بربر warbixin ayaa sheegaysa in gabadha sicirtay Omar Barbar ay ku sugan tahay dalka Norway. Gabadha sicirtay fanaanka Omar Barbar waa gabadh magaceeda lagu magacaabo Ayaan Ciise waxayna degan tahay dalka Norway waxayna hadda markaasi isqaban muddo gaadhaysa bil sida qof ku sugan Norway ii sheegay oo ehel yihiin Omar. sababta ayaa lagu sheegay in ay markaasi gabadhan ay qataartay si aysan ninka kale uga guursan. afkiisa ayuuna ka cadeeyay arintaas ay gabadhan ama haweenadan oo lacag haysata ay ka dambeysay sixirka. haddaba gabadhan ayaa lagu sheegay in ay ka soo jeedo qabiilka lagu magacaabo Beesha Isaaq magaalada Hargeysa. gabadhan sida xogo hoose ay noo sheegeen waxaa la sheegay inay ka mid tahay dadka ganacsatada ah ee ku nool dalkaas markaasi Norway ay ganacsina ku leedahay. haddaba gabadhan Ayaan Ciise muuqaaladeeda sidoo kale muuqaalkii ugu dambeeyay ee uu ka duubay horta aan idin daawadsiiyay sidoo kale Omar Barbar oo la kulmay family-giisa. muuqaalka gabadha ayaanan marka hore ku horeynaa. sidoo kalena xalay tolo markii aan muuqaalka duubay ka gadaal kadib waxa dhacday in Barbar uu slave soo galay yidina dabaqa ayaan iska tuuraya haddii aad markaas gurigeyga igu soo gashaan. xalay tole waxaa dhici gaadhay in uu dhiban gaadhay oo dabaqii iska tuuri gaadhay. dumaashu guriga ka bax walaalkay qaalib waa juudaan barna Cumar Tilla ayaga dilay walaalkood Cabdiftaax ayaga dilay walaalkood Cabdiftaax way sacrifice gareeyeen warooyadood way dileen warii duuba walaana waa la dilayaa warikraan Cumar Tilla walaashay warikraanay badbaadi warikraanay badbaadi warikraanay badbaadi daaqadan ka boodaya آمين أو بح آمين أو سر آمين أو سر وبودية داقد وي فرنتا وبودية والله وي فرنتا والله آمين أو جودان باتين وي فرنتا داقد أوكي تشاغا أوكي تشاغا فرا كفريان تشاغا بالك وجودان بحضرتان وحا داقدان كبحيا آمين موسى يا غالب وجودان سقد حي وحعنيان محاون شاكي سنة أيان وطا إني إدشي ربطا غاريق يدون وكا بليد كيسون وكا غاريق بليد كيس وكا غاريق بليد كيسو إني إدشي ربطا أيان ما فهمتين وكا ولا ليالو هل يقسو غارو ماشي شرف يا كرامة يتهي لتشوغاغا ما شاء الله ولا كيسو لتشوغا قاني موسى وكا دماشي دي فردوس آدن عمر بربر حالة دي سوادين دين قبل أصلا ولا شيء قدركين حالة دي سوادين بلا ما قبت كل شيء ولا الكي بقى واحد مسؤول كا دي whatever happened it's on my brother برينو بحيا وصفر إلهي عافية هلكا waxaa fadhiya gudoomiyaha jaaliyada Maxamed Cabdiqaadir alaabteedii dukumeentigeedina waa kuwaas ma sha Allah alle waxaan u rajeynayaa in fanaanka caanka ah oo Omar Barbar in alla caafiyo ninkan ugu dambeyntii waxaa la sheegay in loo wadi doono dhankaas iyo Canada halkaas oo markaas quraansaar weyn loogu saari doono sida igu maqaalaana baasaboorkii Canadianka watayna warar ayaa sheegay in gabadha Ayaan Ciise la yiraahdo ay ka jeexjeexday balse arintaasi ma cadeyn karno waxaan si Allah subhanahu wa ta'ala uga rajeynayaa in fanaankeenna Omar Barbar alla caafiyo wixii akhbaaraya sidoo kale xogay ka soo kordhana halkan waa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale baraha internet-ka aan ku leenahay ayaan dib soo gelin doonaa.